taasoo kale maanta ciidamadii qarabka sida ee Soomaaliyeed ayaa naloo adeegsaday iyagoo noocyo kala duwan leh gaar ahaanba waxa si gooni ah loo soo xulay shakhsiyaadkii ama ciidamada dadkii ka dhashay Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada qaranka ku jiray ayaa inta si gooni ah loo soo xulay si gooni ah loo soo bixiyay la yiri waa inaad deegaanadiina tagtaan la dagaalantaan dadkiina dawladnimadiina aad burburisaan aad baan uga xunnahay in ciidamadii qaranka iyaga laftooda la kala furfuro qoys iyo jilib loo kala furfuro iyo dawlad goboleedba dabadeetana dadkiina soo xasuuqa la yiraahdo waxaan u baaqaynaa ciidamada qarabka sida ee Soomaaliyeed haday tahay kuwa sida la sheegayba ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ciidamada kala duwan ku jira iyo haday tahay kuwa kale Soomaaliyeedba walaalayaal waxa la isku haystay ma ahayn duulaan qoriye waxay ahayd doorasho reer Koonfur Galbeed Soomaaliyana iyagoo xiganaya dastuurkooda jiritaankooda iyo midnimadooda waxay qabsadeen doorasho waxa la idinku soo khalday waxay ahayd doorashada reer Koonfur Galbeed qabanayaan inta aanay qabanin inaad ka hortagtaan oo dawladnimadii Koonfur Galbeed la dagaalantaan waxaan idin leenahay walaalayaal haday aragtidu sida ahayd waa laga soo gudbay reer Koonfur Galbeed doorashadooda waa qabsadeen wixii siyaasad ahna waxa ka wada hadli doona cid ay khusayso ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayagu ma khusayso inay qaataan amar khaldan ee walaalayaal waxaan leenahay kuwa laga soo diray Muqdisho laga soo aruuriyay Waajid laga soo aruuriyay Xudur sidoo kalena meel kala duwan waxaan leenahay walaalayaal hada doorasho la yiri ka hortaga dadka reer Koonfur Galbeed iyo madaxdooda iyaynan doorasho qabsanin doorashadii shalay tay dhacday 28kii hadii ujeedku ahaa doorasho waxaan rabnaa inaad qoryaha dhigtaan oo aad diidaan amaradaas khaldan waxaan uga xunnahay in wiilasheenii la khalday buruxakaba iyo daynuunay inta u dhaxayso ay cadawgii al-shabaab dhibaato badan ku hayaan qaarkoodna ay dhinteen oo ognahay qaraxyana loo dhigay aad baan uga xunnahay wixii dhacay walaalayaal waxaan leenahay dalkan aad leediin dal kale ma leeyihiin doorashadii mar haday dhacday waa inaad qoryaha dhigtaan oo aad dadkiina iyo umadiina aad nabadda kala shaqaysaan waxaan si gaar ah oo la hadlayaa dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo ku jira ciidamada kala duwan oo la yiri baxa qoryaha qaata hooyada soo dil walaasha soo dil abtiga iyo adeerkaaba soo dil war way idinka khaldan tahay dalku waa federaal hadaa tahay qaran iyo hadaa tahay dawlad goboleedba dalkanaad leedihiin Puntland dadkeeda iska leh Jubbaland dadkeeda iska leh Galmudug iyo Hirshabeelle sidoo kale banaadirna umad kala sheegatay dhiga qoryaha dawladdu waxay idinku baaqaysaa inaad u timaadaan dawladdiina inaad u timaadaan shacabkiina inaad qoryaha dhigtaan ammaanka aad furteen xirtaan af buuxay idinku soo dhaweynaysaa dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya